Assalaamu calaykum. Waxaan sii wadi doonaa taxanaheeni aan kaga hadlaynay dadkii hore. Qaybtii saddexaad oo maanta kaga hadli doona Chinihii hore amba Ancient China. Inagoo qaybtii ugu horeysay kaga soo hadalnay Ancient Greek. Qaybtii labaad Ancient Roma. Maanta waan ka hadli doonaa qaybtii saddexaad Ancient China. Haddaba ilbaxnimadii ugu horeysay China waxay ka dhalatay dhalashadii webigii Huruudaha ama Jaalaha sida loo yaqaano midabka Huruuda. Dawladdii hore China waxaa la odhan jiray Shan Daishan. Boqorka Shan waxa uu ka bilaabmay inuu xukumo China ilaa 1700 ciise ka hor. Intii lagu guda jiray boqortooyadii Shan, Shiinaha ayaa diyaariyay kalendar waxayna sidoo kale horumariyeen xirfado horumarsan oo ku saabsan samaynta naxaaska. Qoraalkii hore Shiinuhu wuxuu adeegsan jiray qoraal sawir gacmeed oo loo yaqaan astaanta. Farshaxanada Shiinaha ayaa qalab ka samayn jiray hubka sida warmo, warqado naxaas ah. Intaa kadib dadka Chu ee galbeedka China ayaa waxay afgambiyeen shandadii waxayna aasaaseen dhaqankoodii. Marka loo fiiriyay daarta Chu, nidaamka dawladda ee khilaafka ayaa soo ifbaxay xilligii Chu wuxuuna caan ku ahaa kobcinta dhaqaalaha ganacsiga. Ayaa lagu balaariyay magaalooyinkii Shiinaha isla markaana wixii xilliga ka dambeeyay magaalooyinka Shiinuhu way koreen dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba. Waxayna kaashanayeen qadaadiicda birta ah. Ganacsiga ayaa xitaa si dhaqso ah u koray. Intii lagu guda jiray xilligii boqortooyada Chu, falsafada Shiinaha ayaa soo ifbaxday. Tii ugu weyneyd ee falsafada Shiinaha ayaa ahayd kalsoonida ay ka dhiibatay fikradihiisii waxaana loogu yeedhi jiray Confucianism. Asal ahaan waxa ahayd fikir nacayb ma ahayn fikir ku salaysan diin. Sidoo kale isticmaalka dhuxusha markii ugu horeysay waxaa laga bilaabay waddanka Shiinaha. Samaynta xarkaha iyo dubadda baaruudda ayaa sidoo kale laga soo saaray China. Sidoo kalena Shiinaha ayaa waqtigaasi dhistay gidaarka weyn ee caanka ah ee ku yaala waqooyiga Shiinaha. La soco qaybaha dambe ee barnaamijkeena taxanaha aan kaga hadli doono dad hore saameyn lahaa iyo magaalooyin ay saameyn ku reebeen. Intaan ku kulmi doono taariikhda tan ku xigta waxaan kaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.